nabaday dhegaysiyaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan. magacaygu waa Cabdiweli Ibrahim Garyare. halka aad naga dhegaysanaysaana waa shabakada warbaahineed ee kismayo24.com. waxaa had iyo jeer idiin soo gudbinaa barnaamijyo gaar ah oo ku eegi doono xoojinta nabadda iyo dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed maadaama dhowr iyo 20 sano lagu soo jiray dagaal sokeeye geyiga Soomaaliyana uu yahay mid colaadi had iyo jeer ay ka ogan tahay. sida aad la socoteenba waxaa guud ahaan dalka Soomaaliya laga xusay 15 bisha May oo ah maalin ku aastaysan gobonimada ummadda Soomaaliyeed ururkii gaarsiiyay ASYL. haddaba kulan ballaaran oo arrintaasi looga hadlayay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ka tirsan. waxaana kulankaasi oo ay isugu yimaadeen dhalinyaro aad u fara badan oo looga hadlayay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee imika uga bannaan nabadda iyo dib u heshiisiinta. waxaa barnaamijkaasi si wada jira u soo qaban qaabiyay hay'adda Winil Peace ee fadhigeedu yahay magaalada Cabudwaaq iyo shabakada warbaahineed ee kismayo24.com oo baryahan bay idiin soo gudbinaysay barnaamijyo lagu lafagurayo nabadda iyo dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed sida ay imika uga qayb qaadan karaan. waxaana doodaasi had iyo jeer aan u qabanaa qaybaha kala duwan sida haweenka, dhalinyarada, odayaasha, waxgaradka, aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta ummadda Soomaaliyeed guud ahaantooda. haddaba barnaamijkan waxa uu gaar u yahay imika dhalinyarada Soomaaliyeed oo iyagu ka dooda doona sida ay u arkaan doorkooda nabadda iyo dib u heshiisiinta. saaxiibkay Maad Xasan Diini oo inooga soo warrama had iyo jeer magaalada Cabudwaaq iyo guud ahaanba gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa dooda u qaybinaya dhalinyarada isugu timid kulanka ballaaran ee ka dhacay magaalada Cabudwaaq kuna aadan aasaaskii ururkii SYL ee 15 bisha May. maadaye bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan meel kastoo aad joogtaanba. waxaa shalay iyo maanta gudaha degmada Cabudwaaq lagu kala qabtay xaflado iyo munaasabado waaweyn oo lagu taageerayo isla markaana lagu dabaaldegayo 15 May oo ku beegnay shalay xilligii markaasi dhidbal loo aasay ama la aasay ururkii SYL ee xurnimada iyo gobonimo u dirarkii dalka Soomaaliya. waxaana xafladahaas ay ka kala dhaceen goobo badan oo ku yaala gudaha degmada Cabudwaaq. haddaba iyadoo qodobo dhowr aan ku soo qaadanayno isla markaana aan ku qadaadhigay xoojinta nabadda iyo dib u heshiisiinta oo markasta aad ka dalacataan isla markaana aad kala socotaan shabakada Kismayo24 anigoo Maad Xasan Diini maanta aan ku soo gudbinayo ayaa maanta waxaan ku soo qadaadhigaynaa isla markaana ku soo gudbinaynaa halkan dhalinta ku dhaqan degmada Cabudwaaq qaar kamid ah oo maanta iyo shalay xaflado ku dhigay gudaha degmada Cabudwaaq. waxaana xafladahaas lagu soo bandhigay taageerada iyo hiilka nabadda leh ee markaasi ka socda gudaha dalka Soomaaliya iyadoo dhalinyarada ugu baaqeen guud ahaanba bahweynta iyo dhalinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u tafahaytaan nabadda. haddaba waa kuwan qaar kamid ah dhalintii oo iyagu markaasi xafladihii looga hadlayay ama loogu dabaaldegayay sanad guuradii 15 May ururkii SYL ee Lego. waxaan maanta aad iyo aad maaragtay ugu faraxsanahay maanta inay tahay 15 May maalintii dhalinyarada adduunka. anagu waxaan nahay maxaan ku raadaa hooyooyinkii maxaan ku raadaa maamooyinkii degmada ahna dalada iftiin oo qoyo gurgudud ka shaqeysa. waxaan soo dhaweynaynaa oo si sharaf badan u soo dhaweynaynaa maalinta 15 May oo ah maalinta dhalinyarada adduunka. waan ku faraxsanahay, waan soo dhaweynaynaa. waxaan mar labaad aan baaq u dirayaa dhammaan Soomaali meel kasta oo joogto baaqaas oo ah Soomaaliya inay maanta dhibaato ka dheertay ay soo dhaweyso nabadda. nabaddu waa wax qaali ah, wax shakhsi u dan ma aha, waa wax u dan ah dadka Soomaaliyeed oo maanta ilaa 20 sano oo dowladnimadii dowladda ka dambeysay way sameeyeen ilaa 20 sano baa ka intii dowladda aan ahayn baan haddana waxaan ahayn baaba. waxa way wax Soomaalida ma aha, wax maaragtay sheegdan ma aha. walaalayaal waxaan dadweynaha Soomaaliyeed ku baaqay in nabadda la soo dhaweeyo. dowladda ku meel gaarka iyo madaxweyne Sheekh Shariif waa salaamayna. dowladda ku meel gaarka waxaan rabnaa inay soo dhaweyso nabadda. baarlamaanada dirirayo oo maaragtay in walba jagada raadinayo waxaan rabnaa in ay dadweynaha u daneeyaan, danyarta u daneeyaan, masaakiinta u daneeyaan. Soomaali waa masaakiin. Soomaali maanta adduunka ma maray adduunka todoba laba bilood bay naga dambeysay. maanta waxaan maamulaya waayada waxaasna waxa keenay dad kala cushiday lahayd qaran ismaqlayay ahayd. anagu waxa weeyaan qaran ismaqlayay manihin waxna kala cushiday mali. walaalayaal diinta islaamka isku xadada soo dhaweeya nabadda
waxaanu dowladda kumeel gaarka u baaqayna in ay soo dhaweyso nabadda Soomaaliya maanta meel kasta waxa weeyaan hadda waxaan arkaynay shirarka garow oo odayaasha ay noqdeen waxa lacagta qurbaha hadii aan loogu deeqay oo mid anaga deeq noqdina sanayn anna laga daayo burburka anna la ka joojiyo burburka waxa kale oo baaqas ku daraya hadda anagu deegaanka aan ku noolahay maadaama aan nahay ururada hooyooyinka oo maaragtay halkan ku midoobay dalada iftan la magac baxay ka shaqeeyo waqooyiga Galguduud aniga oo gudoomiyahooda Muxubiis Jaam waxaan ku baaqayaa oo soo dhaweynaya nabadda degmada aan ku noolahay hal la soo dhaweeyo nabadda cid u xilsaaran tahay male nabadda kulligeena u xilsaaran dhalinyarada waxaan ku baaqayaa meesha fadhida ururada ka faa'iideysanaya xafladan oo loogu talagalay 15 May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliya ama adduunka waxaan baryo u dirayaa dhalinyarada Soomaaliya meel kasta ay joogaan inta kadib waxaan u dirayaa baaq nabadeed dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in aan laga dhigin xaabada dabka la saaro oo xisbi walba iyo qof walba iyo urur walba oo kaca waayaga ka dhigta xaabada waxa la ragteen oo isla ognahay hadda dabka ka shidan Soomaaliya waxa lagu shidaa waa dhalinyaradiina ayadii waxa u keenay aqoon ku filan bayaan lahayn burburkii dhibaatooyinka laga dhaxlayba waxa kamid ah in dhalinyaradii laga dhigto wax dabka la saaro oo hadda dabku markuu seexdo lagu uriyo ayada oo xisbi walba iyo urur walba iyo hoggaan kasta oo raba inuu xukun xoog ku qabsado waayo ku cadiidiyo waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba in ay ka feejignaadaan kii fursad u helay inuu wax barto oo waxbarashadiisa ku hogaamiyo dalkiisa oo uu dib ugu soo celiyo caqliga wax ku bartay inuu nabad ku soo dabaalo laakiin waxaan kula talinayaa inaan laga dhiganin xaalad dabka marna lagu shito marna qoriga loo dhiibo waxaan isla ognahay nin kasta oo maanta wax maamula oo haystaan xisbiyo wuxuu ku shita dabka waa ilmihiisi uu fogeystay meel buu geystay wuxuu soo kaxaynayaa ilmo dadkii dhalay ay warkaynin intee ilmo meel alla meel ay jiraan aan ogeyn nin intee inta gatay uu dab saar oo meel walba ku isqaxinaya dad baa dhalay kuwa qoryaha loo dhiibaya dad baa dhalay kuwa iisha furumaha la gelinaya dad baa dhalay dadweynaha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inayan ilmahooda ay taxadar sameeyaan oo ay ka taxadaraan qaabkii ilmahooda ay ku dhashan lahaayeen oo ay ku badbaadin lahaayeen inayan ilmahooda noqon xaabadii dabka lagu shidan lahaa oo beri Soomaaliya waxay ku xisaabtanto oo ay maanta adduunka uga qayb gasho ma haysato ma in 22 sano oo dagaalku socday inta dhalinyaro baabaaday iyo inta la rogay iyo inta hadda daryeel xumo ku sigan oo daafaha dunida ku baqtiisan doon haday tahay ku baqtay biyo la tageen haddii ay tahay qaxootiyaasha oo ku daryeel xumaysan yihiin kolay dhibaatada Soomaaliya u taala dadka raadinaya kursiga kama fakirin aayaha dhalinyarada kama fakirin mustaqbalka Soomaaliya sababta haddii ay ka fakareen waxay garan lahaayeen oo ay raadin lahaayeen qaabka ay ku badbaadin lahaayeen dadkaas laakiin waxa ay ugu raadiyaan in ay kursi helaan waxna maamulaan intaas waxaan uga gudbayaa baraarujinta dhalinyarada haddii aan gudbo kursiga maanta Soomaaliya laga goobayo waxa ay horta qofku kursi wuxuu goobi karaa oo madaxweynenimo goobi karaa oo maamul goobi karaa oo wasiir goobi karaa oo xildhibaan goobi karaa markuu haysto dal iyo dad dhaqan wardal ma haysataan oo idinma dhaqan wardal ma haysataan oo idinma dhaqan wardiintiini baa xataa hadda xiriir ku jirta oo 100 xisbi iyo 100 mawduuc loo kala sameeyay Soomaaliya waxay ahayd dalka kaliya oo isku dalka oo isku diinta oo isku dadka maanta waxaan maraynaa diinteeni aan naqaanay oo diintii maxamediyada oo diintii naqaano islaamnimada in loo kala sameeyo mid uu yiraahdo waxa tahay xisbiheed mid uu leeyahay waxa tahay xisbikan mid waa burtu mid waa mid uu qayriyo wax qabriyo ku jira mid waa hebel kala sun mid waa hebel kala kidish wax shaqeynaya maahan wax lagu dhaqmi kara maahan annagu haddii aan haweenka Soomaaliyeed waxaan idin leenahay oo idin soo jeedinayna inta Ilaahay ka baqdaan oo dadkiina dhibaatada haysata aragtaan oo xisaabtantaan oo yoolayaan qof walba wuxuu ku xisaabtamaya dalkiisa iyo dadkiisa dadkiini waxaad bari shirka la tagayeen ku xisaabtantaan oo ayayna ku xisaabtantaan oo waxa dunida kale ula tagayeen aad ku xisaabtantaan in aad dadkiina badbaadisaan
oo aad dhibaatada ka bambaadisaan naga mudan waa 15 May waxaan ugu bishaareynayaa oo aan baab u jeedinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxaa lagu imtixaamay hubba lagu imtixaamay ila qalab inay qaataan waxaan leeyahay qalabka dhiga qalinka qaata iyo waxaan ugu gudbiyaa munaasabada 15 May waxaan baa u dirayaa dawladda GFT-ga Soomaaliya dawladda ku meel gaarka baa u dirayaa waxaan leeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay maanta dad ma taqaana mugdiga aan ku jira naga saara nin walba inta jeebka lacag ku soo qaatay wuxuu raadinayo waxna anfacayo ma aha waxaan dad islaam ah nahay magac islaam baa sheeganaa content firqa iyo content diimood baan diinta islaamka ula baxnay waxaan magaceena islaamka oo diinta islaamka inaan qaadano oo aan firqooyinkan waxaan ka baxno dad islaam ah baan nahay oo islaynaya urur baan isku leenahay tiituna waxaan nahay dad islaam qaatil iyo maqtuul baan noqonaynaa waxaan la dilayo oo dhimanayo oo isdilayo waa dhalinyarada weey nimankaan ma taqaana nimankaan xilka doonaya waxay dadku ku shiriyaan waa dhalinyarada waxaan leeyahay dhiga qalabka qaata qalinka dhalinyarada adduunyanaha waxaan hambaliyo gooniya u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay maanta waxaan ku jirnaa Soomaaliya haddaan nahay wax lagu adeeganayo ama lagu shaqaysanayo waa dhalinyaradeena waxaan leeyahay dhalinyaradeena waa iswantay oo aan ka waantoobno dadkan xaabada ugu shidayaan ama dhibka noo horseedayaan waxa baaba'ay ama dhimanaya ama lugaaya waa dhalinyaradeena aan bal intaan tashano aan ka takaaftono balbal waxaan iyo dagaalkan iyo qorigan lagu shaqaysanayo ama lagu hogaansanayo bal aan tashano aan ka tashano waxaan nahay wixii soo baxay iyo dadka hogaaminka mustaqbalka inaan nahay waxaan leeyahay bal dadkan jagadoonka ama mas'uuliyiinta maanta marka dhaawacantay ama lug ka goodo waa laga tagay dariiqan baa laga dhaqaaqaya shalayna waa lagu baahnaa marka xayiga ahayd maanta marka lug ka goodo ama dib ku gaaro waa laga dhaqaaqaya بس دليل تشتا دي بسكو عشتا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله guud ahaan inta ayaanu kusoo afmeerinaa barnaamijkeeni nabadda iyo dib u heshiisiinta oo aad ka dhageysanayseen shabakada Kismaayo 24 oo markasta jecel inay idin soo gudbiso ama toddobaad kasta aad ka daalacaan kartaan barnaamijyada noocan oo kala anigoo ma hadana maanta ayaan kaga soo gudbinaya degmada Cabudwaaq tan iyo intaanu dib u kulmayno barnaamij noocan oo kala waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasina waxaa ku dhan guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegaynay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee nabadda iyo dib u heshiisiinta kaas oo ku soo beegmay waliba markii la aasaasay ururkii SYL ee u soo dagaalamay gobonimada dalka Soomaaliya waxa doodaasi ay ka dhacaysay magaalada Cabudwaaq waxaana doodaynu qaybinay saaxiibkay Mahad Xasan Diini halka aad ka dhageysanaysaana waa shabakada kismaayo24.com iyadoo doodaasi ay iska kaashadeen qabashadeeda hay'adda Weyniid Base iyo shabakada warbaahineed ee kismaayo24.com anigoo Cabdiwali Ibrahim Gareeraah ayaana idin xiriirinaya tan iyo kulanti dambe iyo barnaamijka lamid intaanu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgeliyo iyo amaan Allah